baro Ingiriiska mar kasta iyo meel kasta oo aad caalamka oo dhan ka joogtid. Mawduuceen waa uu ka duwan yahay mawaadiicdii hore oo dhan. Waxa uuna ku saabsan yahay why are you learning English? Sababtee u baranaysaa Ingiriiska? Why sababtee are you adigu learning u baranaysaa English Ingiriiska? Bal su'aashaas adiguna ka soo jawaabo sababta aad Ingiriiska u baranayso ama aad u doonayso inaad u barato noo soo sheeg. Aamina iyo Nadiir ayaa wada sheekaysanaya. Aamina waxay tiri hi, waa ku salaamay. Why are you sababtee learning u baranaysaa English Ingiriiska? Aamina waxay tiri hi, waa ku salaamay. Why are you sababtee adigu learning u baranaysaa English Ingiriiska? Nadiir wuxuu yiri I'm learning English. Waxaan u baranayaa Ingiriiska because maxaa yeelay I want waxaan rabaa to improve inaan hormariyo my communication skills, xirfadahayga xiriirka. Wuxuu yiri I want waxaan rabaa to improve inaan hormariyo my communication skills, xirfadahayga xiriirka. Xirfadaha dadka aan kula xiriirayo ayaan doonayaa inaan hormariyo. How about you? Adigu iska waran. How about you? Adigu iska waran. Adigu maxaa u baranaysaa? Aamina waxay tiri I'm learning waxaan u baranayaa English Ingiriiska to get si aan u helo better job opportunities, fursado shaqo oo wanaagsan in the future mustaqbalka. Waxay tiri I'm anigu learning waxaan u baranayaa English Ingiriiska to get inaan helo better job opportunities, fursado shaqo oo wanaagsan in the future mustaqbalka. aad baad mahadsan tahay haddii aad halkan soo gaartay. laagta iyo flowga ha ka tegin. sidoo kalena haddii aad jeceshahay barashada luqadda Ingiriiska, lambarka profile-ka ayuu saaran yahay. halkaas ayaad nagala soo xiriiri kartaa. qaybta labaadna yaysan ku seegin la soco. soo dhow mar kale iyo welcome.